طبعا waxa uu hadli doona beesha waxa isle mid kamid ah siyaasiyiintooda lagu magacaabo Ahmed Ali Salaad baa lagu magacaabo dabcan gabdhaha la saxbinayo wiilasha shacabka uma jeed mareeg state waxaan leeyahay mudane Dr. Dayib Maxamuud Sheekh ayaa rabaa inaan xoogaa dhalla la dardaarmo marka dardaarankaas in xoogaa layga dhagaysto ayaan aad u rabaa oo shanqarta kale la yareeyo haddaan taa u gudbo waxaan ku leeyahay Dr. Dayibow dadkan aad arkaydo oo halkan isugu yimid qof walba uma taqaanaa waxay raadinayaan in ay magacaaga iyo mas'uuliyadaada caawa ay halkan ka barato dib dambana ma taqaanaaye aad u soo xustidood u ogaatid bal dalka iyo dadka iyo diinta waxa aad u qabatay taa haddaan uga gudbo marka waxa weeye horta kaligaa laguma doorane madaxweyne iyo sida la sheegay baarlamaan iyo waxaa la doortay rag badan oo dhalinyaro waxaan leeyahay dhalinyarada la doortay xilka loo doortay inay si mas'uuliyad leh oo mataqaanaa xilkooda ay u gudan karaan ay uga soo baxaan hadda ka hor berigii Jabuuti la joogay oo ninka la yiraahdo Cabdiqaasim Saayid Xasan lagu dooranayay ayaa nin weyn oo mu'allif oo reer Jabuuti ayaa wuxuu yiri waxaan rabaa inaan madaxweynaha la dardaarmo marka uu la dardaarmayay wuxuu ku yiraahday dadkan aadan baa dhalay haba kala ahaadee gaalka iyo islaamka ninna meel fog kama imaan kani waa ayayda kanina waa awowga adeer baad leedahay abtiga yarteeduna waa inay dadaan abtiga yarteeduna waa inay dadaan mid haddii in laga rido axbay wadaagaan idinkii meel laga jaro hadna waad ka jaran tahay wuxuu yiri islaam baa waxay tiri in ninkan aan arkayo idantayda guuriyay ilmo waa ka dhan lahayo uu daacadan jirin marka waxaan uga jeedaa mar haddii mas'uuliyad lagu dhiibo oo mas'uuliyadaas aad ka soo bixi weyso ninkan aan arkayo idantayda guuriyay ilmo waa ka dhan lahayo uu daacadan jirin umbaad lama tahay marka yay ku wada caayin waxaan kaloon ku leeyahay xilkan aad u qaaday mareeg state inaad Soomaaliya gaarsiido ayaa lagaaga baahan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad mudanayaal iyo magooyin dhalinyarada waxaan ka codsanayaa in la yareeyo